Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta hortagaya golaha shacabka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya xilli midowga musharaxiinta Soomaaliya ay hore u sheegeen in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu qorsheynayo muddo kororsi loo sameeyo oo ay u sameeyaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay shalay war-saxaafadeed ka soo saareen marxaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka oo ay ugu baaqeen in aysan muddo kordhin samaynin. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa ayaa maanta waxa ay hortagayaan golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya si uu ugu soo bandhigo waxyaabaha uu qabsoomay muddo dhan 9 maalmood laga joogo markii xukuumadda kalsoonida ay ka heshay baarlamaanka 24 bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay 2020. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo qorshe hawleedka waxqabadka xukuumaddiisa inkastoo qodobada ugu waaweyn ee uu ballan qaaday intooda badan aysan waxba ka fulin ama waxqabad sidaasi u muuqda aysan qaban xukuumadda xilligani jirta ee waqtigeedu uu dhacay. Ra'iisul Wasaaraha ayaana waxa ay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya qaarkood ku eedeeyeen in uu qabanqaabinayo muddo kordhin loo sameynayo hay'adaha dawladda ee waqtigooda uu dhacay. Waxyaabaha ugu waaweyn ee su'aalaha xildhibaanada ay ka qabaan waxaa ka mid ah maadaama uu ballan qaaday in xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay saldhigayso hirgelinta doorashooyin madaxweynaha dawladda ku qabsooma balse laga soo gudbay waqtigaasi iyadoo aysan jirin natiijo laga gaaray arrimaha doorashooyinka oo wax walba ay fashil ku soo dhamaadeen dawladdana uu dhammaanbay xilalkeedii uu dhacay. sidoo kale waxaa Maxamed Xuseen Rooble uu ballan qaaday in uu wax ka qabanayo sugidda amniga taasi oo iyada qudheeda waxaa la dul saaray su'aal sabab la xiriirta dilal qaraxyada ka dhacay caasimadda si gaara toddobaadyadii ugu dambeeyay oo qaraxyo isdaba jooga ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho kaasoo ay ku dhinteen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo dad u badan shacab balse ilaa hadda aan laga hadlin. qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ayaana maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ku soo bateen magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Rooble uu damacsan yahay in uu weydiisto muddo dheeraad ah golaha shacabka oo ka baxsan xeyndaabka 4 sano ee dawladda ah isaga oo qiil ka dhiganaya in ay qabyo ka yihiin ballanqaadyo uu sameeyay. haddaba suuragal ma tahay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Rooble in ay dalbato waqti dheeri ah maadaama muddada sharciyeedka ee dawladda uu idlaaday 8 Febraayo ee sanadkan 2021. madaxweynaha uu xilku ka dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana waxa uu ku dhawaaqay in kulan kale ay isugu yimaadaan madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada. shirkaas oo ka dhici doona magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal balse arrintaasi oo ay ka hadashay Puntland ayaa waxa ay sheegtay in aan lagala tashan shirkaasi balse ay soo dhaweynayso iyadoona ku baaqday in shirkaasi uu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. ilaa hadda ma jirto waan doorasho oo dalka ka socota isqabqabsiga siyaasadeed ayaana cirka ku shareeran.